ma ismuujin bay ka ahayd mise xogogaalaan waa murta ay ku saabsan tahay faaladan warku waana qalinkii Maxamed Cumar Sheekh. jamhuuriyadda Soomaaliland waa dal xor ah isla markaana nidaamkiisa ganacsi lagu gardaadiyo furfurnaasho iyo madax bannaani. sidoo kale jamhuuriyadda Soomaaliland waa dal dimuqraadi ah oo xukuumaddiisu ku timid rabitaanka bulshada iyo doorashooyin qof iyo cod ah. waxaana nasiib wanaaga in jamhuuriyadda Soomaaliland 3 madaxweyne oo cod shacab lagu doortay ay xilka la kala wareegeen 19 sannadood ee la soo dhaafay. tan iyo markii dalku xornimadiisa la soo noqday ma jirto cid cadaadis iyo xayiraad laga saaray ganacsiga, waxaana muwaadin kasta uu si xor ah ugu dhex ganacsan karaa degmada iyo gobolka uu doono. haddaba waxaa fajiciso noqday xildhibaano layli ku ah siyaasadda oo ka tirsan golaha wakiilada ee cusub oo shir ay ku qabteen ee magaalada Boorama dhawaan ku sheegay in cunaqabatayn dhaqaale iyo mid ganacsiba la saaray gobolka Awdal, taasi oo waxba kama jiraan ay xildhibaanadaasi ka been sheegeen dawladda iyo dimuqraadiyadda Soomaaliland, taas oo ahayd fariin looga dan lahaa in cunfi siyaasadda dalka lagaga abuuro. hase ahaatee shacbiga gobolka Awdal oo xogogaal u ah xaaladda dalka ayaan ka hoos qaadan dhawaaqa xildhibaanadaasi oo mucaaradadu ay la martay inay fagaaro la soo istaagaan dacaayado barkumataal ah. dadka rogroga siyaasadda ayaa hadalka xildhibaanada ku tilmaamay mid xaqiiqda ka fog oo ay uga gol lahaayeen inay ismuujiyaan oo kaliya, hase ahaatee aanay qiimayn inay xambaarsan yihiin xasaanadda ummadooda oo haddii ay ku gafaan aanay mahadin doonin. sidoo kale dadka qaar ayaa sheegay in xildhibaanadaasi ay u baahan yihiin inay bartaan shuruucda iyo xeerarka dalka isla markaana ay mustaqbalka arrimaha ay ka hadlayaan ka eegaan dhinaca sharciga si aanay u macno guurin oo aanay u lumin karaamada aqalka ay ka tirsan yihiin. ugu dambayn waxa xildhibaanadaasi dhalinyarada looga baahan yahay inaanay ku shaqaynin caadifad ee ay noqdaan xildhibaano aan sawir taban iyo dhaliile u soo jeedin golaha wakiilada oo ah aqalka koobaad ee baarlamaanka. inta waxaan ku soo gabagabanayaa faaladii warka oo halkudhigeedu ahaa ma ismuujin bay ka ahayd mise xogogaalaan. faalada waxa qoray Maxamed Cumar Sheekh, waxaa halkan idinkala socodsiinayay anigoo ah Suhayb Cabdi Goolne.